السلام عليكم. طبعا كاني أرمود عدناها وشاقين. نمبر كو سيرتا دادكا. نمبر لابو قرشاها عدناها وشاقين. نمبر سدح خلاف كاريركا عدناها وشاقين. نمبر أفر قرع عبادة قاركا كوا. نمبر شن دنبي دادا. نمبر لح نرشا دا قاركا. نمبر تضبو عيبها دادكا. نمبر سديد dhibaatooyinka gaarka kuwa ah. nambar 9 hantidaada ha ku faanin. nambar 10 ixsaankaaga qofna ha u sheegin. nambar 1 sirta dadka inaadan faafin sirta dadka ee lagu qarsaday ama lagu aaminay. haddii ay kaa fakato waxaa yaraanaysa in lagu aamino arrin sir ah ama wax u dhow. waxaa lagu sheegay ayaa ah in shakhsigaasi dadka aad ugu dhowdahay, sidaas darteed kalsoonidiisa ha burburin oo sirtiisa ha la wadaagin shakhsiyad kale. sidoo kale waa arrin lagu ceeboobo haddii lagu barto arrinkaas. cid walibana way iska kaa ilaalinaysaa. ka digtoonow faafinta siraha dadka iyo ummadda inaad ku mashquusho oo aad hawl ka dhigto mar kasta. nambar 2 qorshahaaga cidnaha u sheegin. qorshaha shakhsiga waxyaabaha bilowga ee noloshiisa ku nidaamiyo. haddii aad la wadaagto qorshaha cusub, dadka way ku adkaanaysaa inaad qorshaha si fuliso. waxyaabaha ka hor istaagaya waxaa ka mid ah inaad kala kulanto niyadjab, sidoo kale inay ku ammaanaan islamarkaana shaqada aad hawl yaraysatid inaad kula kulanto fikrado kala duwan, sidaasna fikirkaagu dhexda ugu baxo. marka cidnaha la wadaagin qorshahaaga. xikmad ayaa waxay ahayd dadka ha u sheegin qorshayaashaada ee taa beddelkeeda tus natiijooyinka aad gaartay. nambar 3 khilaafka reerkaaga cidnaha u sheegin. khilaafka reerkaaga cidnaha la wadaagin waa arrin adiga sharaf ku ah, bulshadana aysan qaribaynin. xamaasadda reerkaaga ka socto markaas, sida inay isku dhicin labadaada waalid. haddii aad xasla tahayna inaadan dadka u sheegin adiga iyo xaaskaaga waxa idin dhex maray oo isfahan darro ah, nolosha reerkaaga iyo guud ahaan waxyaabaha ka dhaco markaasi. nambar 4 qara cibaadada gaarka kuwa ah waa mid ka mid ah waxyaabaha sida joogtada ah aan ugu sheegno dadka. midaasi looma baahnaa, balse waxaa loo baahan yahay iniga adiga gaarku u ahaadaan oo aan cid kale la wadaagin. wixii camal aad samaysay, sida inta mar aad akhrisay jumladda ah ilaahayow ii dembi dhaaf, iyo waxyaabo kale kuwaas oo aad cibaadada ku joogtayso. ha ahaato cibaadada wax ilaahay iyo adiga oo keliya gaar idin ah, yaysan ogaan cid walba aad la kulanto. waan ogahay waxaad dhahaysaa ma cibaadada dadka laga qaryaa, laakiin waxaa qurux badan in ilaahay iyo adiga gaar idin noqoto. nambar 6 noloshaada gaarka ah inaadan marnaba sheegin waxyaabaha aan habboonayn. inaad qof u sheegto iyo waxyaabo kale oo wakhtigooda aan loo joogin. ka ilaali noloshaada gaarka ah dadka. waxaad la wadaagtay waxyaabo badan oo noloshaada ku saabsan. hadhow waxaad aragtay hadal dadka dhex wareegaya aadna la yaaban tahay cidda shakhsigaasi u sheegtay, iyo inaad adiga iska shekiso. micnaha waxaad sheegtay aanan nidaamka lahayn inaad adiga sheegtay iyo in qofka la wadaagtay sida ay bulshada ku soo gaartay markaasi. nambar 7 ceebaha dadka. xadiis ayaa micnihiisa ah qofkii qof muslima astura, ilaahay ayaa asturaya adduun iyo aakhiro. micnaha qof ayaa khalad ama dembi ku aragtay. haddii aad aragto inaadan ku mashquulin ceebtiisa oo aadan faafinin, waxaa macquul ah inuu qaladka ugu dhacay sikadiisa. laga yaabaa qof qaladkiisu badan yahay inuusan ahayn, balse sikadiisa ugu dhacay qaladkaasi. waxaa ku wanaagsan inaad qaladkaasi ka waaniso aadan faafinin wixii aad aragtay ee qalad ah. nambar 8 dhibaatooyinka gaarka kuwa ah. waxyaabaha kugu dhacay wakhti aan sidaasi u badnayn iyo waxyaabo aanan la ogayn. haddii aad dadka la wadaagto oo ay bunbuninayaan adigoo markaasi yaraysanaya, ayay kuu noqon kartaa arrin la eg buur. sababtana waa hadallada iyo sida ay kuu saameeyaan. nambar 9 hantidaada ha ku faanin. hanti ayaad ka hadlaysaa. waxaa laga yaabaa dadka qaar inaysan haysan hooyo, cunto iyo nolol degan oo raaxo leh.
haddii aad ku faanto hantidaada waxaa macquul ah in hantidaada barkada ay ka hadho oo nolosha cidhiidhi kugu noqoto. shakhsiga aad ugu faanayso waxaa laga yaabaa inuusan haysan. markaad u sheegto siduu noqon karaa bal ka waran qofkaasi. Nambar 10 ixsaankaaga qofna ha u sheegin. inaadan ku hadaaqin qof ayaan sadaqo siiyey, qof ayaan meel heble ka soo qaaday, aniga wax kaa dhigay, aniga heerkan ku soo gaarsiiyey. inaadan waxaasoo kale aadan ku hadlin oo waxyaabaha ay dadka inta badan ay ku hadlaan. muhiimadda waa inaad ka tagtaa raad suuban caawisaana dadka. xikmad ayaa waxay ahayd abaal laguu galay ha hilmaabin, abaalaad gashayna ha sheegsheegin. waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, siina gaarsii saaxiibadaada ilaa 2 qof. intaynu ku kulmi doono kani muuqaalkiisa xiga. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.